kulanto wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada dalka media qodobada maanta ugu dooran waxaa kamid ah xubno la kulmeen farmaajo oo ugu digay kulmo uu leeyahay beelo gaar ah Abiy Ahmed oo war ka soo saaray xiisada u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya cawad oo beeniyay warqad la sheegay inay Puntland ugu faa'iideysatay heshiis dagaal xoogan oo ka dhacay xalay degmada Bardaale iyo fariisimo ciidamada Itoobiya oo weerar culus lagu qaaday qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal dalka media balse aan ku bilaabo magaalada Muqdisho sanatare xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo laga soo doortay deegaanada maamulka Galmudug ayaa madaxweynaha Soomaaliya kala hadlay xaaladda Galmudug mas'uuliyiinta ayaa madaxweynaha Soomaaliya ka dalbaday inuu joojiyo kulamada gaargaarka ah ee uu la qaadanayo beelaha deegaanka Galmudug isla markaana aysan ka warqabin xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ee ka soo jeeda deegaanada maamulkaasi xubnahan ayaa sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya kula taliyay in khilaafka Galmudug ee siyaasiyiinta uusan gaarin beelaha iyo odayaasha oo hadda ka madax banaan cudurka Galmudug ee jahwarka siyaasadeed waxaan la kulanay madaxweynaha Soomaaliya waxaan u sheegnay in aan ku qancin kulamadii fashilmay iyo kuwa kale oo soo socda oo kala geynaya beelaha Galmudug ayuu u sheegay warbaahinta xildhibaan ka soo qayb qaatay kulanka dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliya iyo siyaasiyiinta maamulka Galmudug xildhibaanada warbaahinta la hadlay ayaa sidoo kale sheegay in Galmudug uu hadda ragaadiyay xasilooni darro siyaasadeed oo ku kooban hoggaanka maamulkaasi balse hadda ay dareemayaan in hoos loo dhaadhacay khilaafkaasi oo laga yaabo in deegaanada maamulka Galmudug uu saameyn xoogan ku reebto waxay noo muuqataa haddii aan hadda la qaban in Galmudug khilaafkeeda hoos loo dedejiyo dagaal iyo musiibo kale laga rabo waana sababta aan ugu digayno hoggaanka dalka ayuu yiri xildhibaan la hadlay warbaahinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa la ogaaday inuu kulmo la qaatay hal habeen laba beelood oo ka tirsan beelaha Galmudug waxayna sababta keentay in digniinta ay soo saaraan xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xogta ay warbaahinta heshay ayaa sheegaysa inuu aqbalay madaxweynaha Soomaaliya joojinta kulamada ay mideysneen ee dhaqanka Galmudug lala qaadanayo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa arintaas inuu sida la sheegay aqbalay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa mar kale ka hadlay xiisada iyo khilaafka u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo meel xun gaaray Abiy Ahmed oo wareysi siiyay qaybta Amxaariga idaacadda VOA ayaa sheegay in dawladda Itoobiya iyo dalal kale ee gobolka ay isku dayi doonaan in ay xal ka gaaraan xiisada labada dhinac waa inaan midba midka kale caawinaa oo gacan ka geysanaa sidii xal waara loo gaari lahaa khilaafka soo kala dhaxgalay dawladaha Kenya iyo Soomaaliya ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed wuxuu intaasi ku daray in dalalka dariska Soomaaliya iyo Itoobiya ay walaac ka qabaan in khilaafka u dhaxeeya aysan saameyn ku yeelato gobolada oo dhan waxaan ognahay in dhibaato kasta oo u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ay nagu soo baahi karto sababta darteedna waxaan jeclaan lahayn inaan ka shaqeyno inaan xalino ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Itoobiya ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ma sheegin qaabka ay u xalinayaan xiisada labada dhinac ee Kenya iyo Itoobiya warbaahinta ayaa ogaatay in madaxweynaha maamulka Saciid Cabdullaahi Dani wafdi hogaaminayo oo kulamo kula qaatay Beijing madaxda shirkadda Shiinaha laga leeyahay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka Faarax Wacaash iyo madaxda shirkadda ayaa kala saxiixday dhismaha dekadda kalluumaysi oo casri ah oo shirkaddu ka hirgelinayso degmada Ayl ee gobolka Nugaal waxaa kadib soo baxay warqad la sheegay inuu qoray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo loo diray safaaradda Shiinaha ee magaalada Muqdisho qoraalkan oo ku taariikhaysan 7 May ayaa sida ka muuqata waxa Cawad uu sheegay in dawladda Shiinaha ay dawladda federaalka Soomaaliya ay raali ka tahay heshiiska lala galay madaxda dawladda Puntland isla markaana ay soo dhaweynayso heshiiskaasi dawladda federaalka Soomaaliya dhismaha dekadda ay ka dhisayso degmada Ayl ee gobolka Nugaal si kasta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa beenisay inay ayada ka timid warqadda waxayna sheegtay inay tahay mid been abuur ah oo lagu faafinaya baraha bulshada qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu yiri wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxay cadeynaysaa in warqadda lifaaq lagu baahiyay warbaahinta bulshada ayna ka soo bixin wasaaradda arrimaha dibadda sidaas awgeed ay tahay mid been abuur ah dagaalyahanno ka tirsan al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmooyinka Bardaale iyo Qasax Dheere oo ka wada tirsan gobolka Baay ciidamada Itoobiya oo saldhig ku leh
Bardaale ayaa la sheegay inay rideen madaafiic culus oo si xoogan lagu maqlay magaaladaasi. Bardaale ayaa waxay saldhig ciidan u tahay ciidamada Itoobiya qaybta ka AMISOM iyo kuwa kale oo aan AMISOM ku jirin oo ka socda dalkaasi. Gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Xasan ayaa sheegay in Al-Shabaab ay weerar gaadma ku soo qaadeen degmadiisa Bardaale balse ay iska caabiyeen kadibna dagaal culus oo ay kala kulmeen afaafka hore ee degmada Bardaale. Gudoomiyaha ayaa sheegay in ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya uusan wax khasaare ka soo gaarin dagaalkaasi, sidoo kale uusan sheegi karin inuu jiro khasaare soo gaaray dagaalamayaashii ka tirsanaa Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday degmada Bardaale ee gobolka Baay. Wararkii ugu dambeeyay oo ka helin maanta ayaa sheegaya in dagaalkii xalay uu ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac ee ku dagaalantay gudaha degmada Bardaale ee gobolka Baay. Inkastoo ay iska yartahay xogta laga heli karo dagaalkaasi, dadka ku sugan Bardaale ayaa inoo sheegay inay arkayaan dhaawacyada ilaa 10 askari oo la gaarsiiyay isbitaalka guud ee degmadaasi. Dhanka kale isla xalay Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen degmada Qasax Dheere ee gobolka Baay, waxaana la sheegay in dagaalku muddo socday oo xalay dhex maray ciidamada ammaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo kuwa dagaalamayaasha Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday Qasax Dheere ka tirsan gobolka Baay. Booliiska dalka Kenya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen nin qorsheynayay dilka madaxweynaha Uhuru Kenyatta. Ninka la qabtay maanta oo Sabti ah ayaa isku dayay inuu shalay galo garoonka New York halkaasi oo maanta lagu qabanayo xuska maalinta Madaarka Day. Saraakiisha militariga ayaa sheegay in Aadan Galay oo 22 jir ah ay shalay qabteen ciidamada militariga Kenya, ha yeeshee uu ka baxsaday. Ninkan ma sheegin qorshihiisa, ha yeeshee booliiska Kenya ayaa sheegay inuu damacsanaa dilka madaxweynaha Kenya oo maanta khudbad ka jeedin doona garoonka. Saraakiisha booliiska Kenya ayaa sheegay in Aadan uu sanadkii 14 ku biiray Islaamka, sidoo kalena galay xarakada Al-Shabaab, wuxuuna ku noolaa xaafadda Islii ee Nairobi. Waxaa sidoo kale la socday nin kale oo ciidamada ammaanka sheegeen inay qabteen. Qabashada Aadan ayaa ka dhalatay markii laga shakiyay lana baaray aqoonsiyada uu watay. Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen dalka media. Intaan warkaan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.